بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka oo muxkamka wuxuu ugu naadiyey dadka bani aadamka magaca loo yaqaano oo idil asagoo ku oranaya yaa ayuha annaas wardadow. allah subxaanahu wa tacaala markuu magacaa ku dhawaaqayey qolo gaara khaas ugama dhigin, ma uusan sheegin midab gaara, mana uusan sheegin rag iyo dumar oo la kala qaaday, laakiin bani aadamka oo idil ayuu si guud alla ula hadlay subxaanahu wa tacaala. wuxuuna allah ku yidhi dadow waxaad ka baqataan rabbiga idinka idin khalqay. sababta aad uga cabsanaysaan allah waxa weeye alla waa allaha idinla xisaabtami doona, idinla amaalmarinaya adinka. saacadda qiyaamada gilgilashadeeda iyo dhaqaaqeeduna waa shay daran oo shadiid ah. saacadda qiyaamada axadka garanaya dunida tan hurdo badan lama yimaado, farxad badan adduunka kuma farxo. in badan ayuu isku dayaa rabbigii inuu raalli gareeyo subxaanahu wa tacaala, waxuuna ku dadaalaa xoog iyo xoola waxau leeyahay inuu ku bixiyo meel alla raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala. allah hadduu qadaro waxaanu wax ka darsi doonaa arrimo ku saabsan shadaa'idda iyo dhibaatada ay qiyaamadu iska leedahay. marka mawduuca inta aanan u gudbin ayaan doonayaa bal inaan akriyo kolka hore xadiid uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo ka mid a waxyaalaha la fahaantooda qiyaamada lala kulmi doono. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi idaa kaana yawma alqiyaama ya'ti allahu ila alcibaadi liyaqdiya baynahum wa kullu ummatin jaasiya. maalinta qiyaamada kolkii la helo oo ay dhacdo allah ayaa imaanaya subxaanahu wa tacaala, waxauna allah u imaanaya addoommada inuu kala saaro. ummad walbaana waa jaasiya ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. jaasiyada waxaa la yidhaha axadka markay jilbuhu dhulka u yaaliin oo uu sidaa u fadhiyo dhibaato badan ayuu dareemayaa, si ayuu u kuunadaa u jirkiisa isugu duwan yahay. marka wuxuu yidhi ummad walba waa jaasiya, wa taraa kulla ummatin jaasiya. waata waa la yidhi subxaanahu wa tacaala waad arki doonta ummad walba inay tahay mid jilbaha ku aruman oo dhulka taalla, dhibaato badanna ay dareemayso mashaakilka maalintaa jira intuu la eg yahay. qabiilkii xoola isku hadlaynaya iyo dadkii uga sheeganaya iyo dadkii odhanaya annagaa maamulka iyo madaxda haysanaa, maalintaas ayadaa inay dadkooda wax u qabtaan ayaa laga doonayaa. kan waxba qaba kara inuu diyaar garoobo hadda aad bay ugu habboonaansho badan tahay. si uu alla addoommada u kala xakumo ayuu maalintaas ayadaa imaanin ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. fa awalu man yadcuu bih axad alla loogu yeedho waxaa ugu horeeya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rajulun jamaca alqur'aan, rajul qur'aanka kulmiyo aad u garanaya, wa rajulun kasiiru lmaal, wa rajulun qad qutila fii sabiili illahi ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam. wax alla la hor keeno rabbi xisaabtan weydiiyo waxaa ugu horeeya saddexdaa qofood: rajul qur'aanka kulligii garanaya, rajul xoolo badan iska leh oo xoolihiisu aad u badan yihiin, iyo rajul kulmiyey ayuu odhanayaa yacni maal fara badan alla siiyey, iyo kii ku dhintay dagaalka gaaladu iska leh bay muslimiinta kula jirto. saddexda axad qofood marka la keeno allah wuxuu ku odhanayaa rajulkii qur-aanka garanayey callamtu maa anzaltu calaa rasuuli, waxaan ku baray waxaan rasuulkayga ku soo dejiyey, waxaan kaa dhigay mid qur'aanka garanaya. famaadaa camilta fii maa callimta, maxaad ku soo camal fashay waxaad soo baratay? waxa aad baratay oo aan ku baray maxaad ku qabatay? waxau odhanayaa rajulkii asaga ahaa yaa rabbi qara'tu fiika alqur'aan, rabbi ow adiga darta ayaan qur'aanka u akriyey, adiga darta ayaan cilmiga u bartay, wa taxallamtu waan bartoo dadka ayaan baray, sidaa ayaan u dadaalay. allah waxau odhanayaa hal mar kadabta wa taquulu lmalaa'ikatu kadabta, rabbi waxau leeyahay been baad sheegtay. malaa'igta alla waxay odhanaysaa been baad sheegtay. taxallamta alcilma liyuqaala laka huwa caalim, wa qara'ta alqur'aana liyuqaala laka huwa qaari. waad akriday waad baratay cilmiga in lagu yidhi caalim weeye.
qur-aanka waan akrisay in lagu yidhaha qaari weeyo qur-aanka wuu garanayaa faqad qiila laka waana lagu yidhi waxaad doonaysay waxa aad rabtidna lagu yidhi malaa'igta alle ayaa laga adeejinayaa wejiga ayaa la qabanoo naarta ayaa weji loogu tuurayaa axadkaa waxa cadaab ka geeya waa maxay caalim cilmiga garanaya oo diinta yaqaano oo diinta bayaanay ayuu ahaaye waa ikhlaas la-aan wax kastoo qabanaya waxa u qabanayay ha lagu ammaano ha lagu qadariyo xaalomanimo ha lagaaga dambeeyo saraha lagu qaado dhibaatadaas ayay keentay rajulkii kasiirulmaalka ahaa rabbi wuxuu oranayaa subxaanahu watacaala acdaytu laka min asnaafi ilmaal maalka nuucyadiisa ayaan ku siiyey xataa maa tabtakira ilaa axad ilaa aadan qofna u baahanin famaadaa camilta maxaad ku soo camal fashay waxa aan ku siiyey oo xoolo ahaa maxaad ku qabatay markaasuu le yaa rabbi maa taraktu min sabiilin tuxib ma aanan ka soo tegin dariiqaad jecasa an yunfaqa fiih in wax lagu bixiyo ilaa aan dariiq nuucaasa u tago anfaqto fee awaan ku bixiyaanoo adiga dartaa ula jeeda rabbi wuxuu odhanayaa kadabta malaa'igtu waxay odhanaysaa kadabta been baad sheegtay xoolaha waad bixin jirtay dariiq xalaala kuma aadan bixin jirin barkood haddaad ku bixido ood masaajid maalmaha qaarkood dhisa amaad masaakiin siido maxaad u siinaysa liyuqaala laka huwa jawaad in lagu yidhaha hebel jeegsi weeye hebel saki weeye hebel xoolaha waa bixiyaa gacmihiisa isma gaaraan waa nin wanaagsan faqad qiila laka waxa aad doonaysidna waa lagu yidhi sidaas ayaa lagu odhanayaa buu yidhi sala allahu alayh wasalam halkaas ayaa malaa'igta alla inta loo dhiibaayaa naarta lagu jiidayaa waa ninkii sadaqada badnaa oo xoolaha bixin jiray oo shilinkiisa loo malaynayay inuu janno ku iibsanayo waxa barakada ka qaaday oo balaayo ugu dhacday waa ikhlaas la-aan alla darti haddoo wax u bixin lahay dhibka kuma dhaceen axadkii mujaahidkay oo dariiqas ku dhintay ayaa rabbi ku odhanaya waatan geesi kaa dhigay waatan uwood ku siiye maxaad soo qabatood u dhimatay yaa rabbi qaatal waan dagaalamay oo waa lay dilay dariiqaaga adiga diintaadana u soo dhintay saan u dagaalamayey waan soo dagaalamay xataa qutila fiika ilaa adiga dartaa la ii dilay ilaa aan diintaan usoo dhintay oo aan shahiid sidaas ku soo noqday markaasaa alla ku odhanayaa kadabta been baad sheegtay malaa'igtuna ay ku odhanaysaa kadabta rasuulka sala allahu alayhi wasalam isagoo abu hurayraba hadlayo waxau yidhi yaa abaa hurayra ulaa'ika halaasa saddexdaa oo kuwaasu awalu khalqi illaahi tusaxaru bihim innaar buu yidhi waa khalqiga alle kuwa ugu horeeya oo naarta alla lagu sida buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khalqiga allah waxa ugu horeeya oo naarta lagu ololayaa waa saddexdaa qofood buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka haddaba akhi lmuslim wa ukhta almuslima axad walboo muslimaho waxaad ku baraarugtaa ogow oo dad waxa janno lagu galo waxa ugu qaybo badan bay cadaab ku galeen dadkii waxa cadaabka ay ugu galeenna waa ikhlaas la-aan waa camalkood alla darti loo samayn waa waxa laga tegayoon alla darti looga tegin axad walbow camalkaaga rabbi darti u samay waxa aad samaynaysa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabiga ka qaado waxa aad cunaysaana xalaal ha noqdeen si camalkaaga loo aqbalo alla raalli kaaga noqdo xadiidka isaga waxaa alfaadiisa soo saaray tirmidi iyo ibnu xibbaan culummadu way saxiix yeeleen alfaadiisa qaar ka midana waxay ku sugantay agsarkeeda saxiixu muslim isagoo intaa ka bedeleen kana dhirir badan marka axad walbo waxaad ogaanaysaa aniga cibaado waan la imid keliya arrintu ma ahan waxa aad la timid oo lagu badbaadayaa ma yihin wixii lagu badbaadayey ma usoo marta dariiqii loo marayay faman kaana yarju liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada walaaxadkii rabbi la kulankiisa rijaynaya oo cadaabka alla ka baqanaya camal waafaqsan kitaabka iyo sunnada ha la yimaado marka uu camalkaas samaynayana yowsan cibaadada cid kale alle ugu darin cid kale ha kugu ammaanta iyo qof kale ha kugu qadarino iyay kaa noqonin rabbi darti silinku ha kaaga baxo waxaad samaynaysa rabbi darti u samay xoolo markaad bixinaysa laa taquul ha odhanin lillahi walirixim waxaa iskale allah iyo qaraabada laa yajuusu haada haddaad sidaa tidhaahdo shirki weeye lagaamana aqbalayo
وحا لكاير يا ركما يعني سبحانه وتعالى وحا كلا لدرس ما ربحنا يا وصدق وكذا